Daliilo xoogan ayaa dul hooganaya safarka madaxweyne Xasan Sheikh uu ku tagay wadanka Mareykanka. 10 safar oo ka horeeyay safarkan ayaan laga hayn wax dadka iyo dalka Soomaaliyeed u dana oo madaxweyne Xasan dib ugu la soo laabtay kolka laga reebo heshiisyadii jaadka ee Kenya loogu deeneeyay iyo kii masaarida lagu la saftay. inkastoo badi safaradiisii hore sumcad xumo u soo hooyeen Soomaaliya haddana kan Mareykanka dhaliilaha dul hooganaya ayaa la xidhiidha maqaamka lagu qaabilay nooca wafdiga raacay iyo dadka uu la kulmayba waxaana hadheeyay dhaliilo dhinacyo kala duwan ka imanaya. madaxweynaha Soomaaliya safarkiisii 11aad uu ku tagay wadanka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka meertada 77aad ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay. shirka ka hor wuxuu galay kulamo kala duwan oo uu la qaatay dadyow kala duwan. ugu horeyn safarka madaxweynuhu ku tagay Mareykanka ma jirto wafdi wehelisa kolka laga reebo qaar ka mid ah adeegayaashiisa laba wasiir dawlad oo ay hel yihiin agaasimaha madaxtooyada iyo caruur u dhalay madaxweynuhu. dhinaca kale lama socdo wasiirkii arrimaha dibadda dalku qaabka loo qaabilay oo gabi ahaanba ku hooseeyay sidii madaxda kale ee shirka ka qayb gashay ee wadamada kale loo qaabilay oo si weyn loo saluugay. haddana waxa madaxweynuhu kulamo la qaatay dadyow kala duwan oo qaarkood darajo ahaan aad u hooseeyaan. qaar ka mid ah kulamada uu galay kolkaad eegto madaxweyne Xasan waxa uu la kulmay xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka oo u dhigan wasiirka difaaca dalkaasi isagoo aan wadanin madaxweynuhu wasiirkiisi gaashaandhigga ama xataa qof ka socda wasaaradda gaashaandhigga. sidoo kale waxa uu la kulmay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka isagoo aanu la socon la taliyihiisa amniga qaranka ama xataa qof xafiiskaasi ka socda. Xasan Sheikh waxa uu la kulmay madaxa hay'adda lacagta adduunka IMF isagoo aanu la soconin wasiirkii maaliyadda Soomaaliya ee wada shaqaynta tooska ah ay ka dhaxaysay hay'adda lacagta adduunka iyo xubnihii kale iyagu ka arriminayay arrimaha deyn cafinta. sidoo kale madaxweyne Xasan waxa uu la kulmay madaxda sare ee bangiga adduunka waxaana uu weydiistay kaalmo dhaqaale. waxa la qaaday sawiradan oo akhrintoodu ay ka muuqato qanaaco la'aan dhanka mas'uuliyiinta ka socota bangiga adduunka taasoo loo fasiran karo saluug ku aadan wafdiga madaxweynaha oo ay ka maqan yihiin dhammaan hay'adihii maaliyadda Soomaaliya beddelkoodana ay soo fadhiyaan sida idiin muuqata xubno aanay haba yaraatee jirin wax ka khuseeya kulamadan. lama oga ujeedka madaxweynuhu kulamadan ugu kaxaystay shakhsiyaadkan aan shuqulka ku lahayn. habdhaqankan ayaa xambaarsan sawir liito oo ka turjumaya nooca ay tahay dawladnimada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu garwadeenka ka yahay. waxa kaloo tani macno tir ay ku tahay ujeedkii loo samaystay hay'adda fulinta. dhanka kale waxay dunida u muujinaysaa inaanay Soomaaliya ka jirin isla xisaabtan iyo kala dambeyn haddiiba ay suurtagal tahay in madaxweynuhu isku noqon karo keligiis wasiirka gaashaandhigga ahna wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiirka maaliyadda madaxa bangiga dhexe marna uu isu mateli karo la taliyihiisa amniga qaranka. halka sidoo kale shaarar badnaanta la iska dulgashaday ay muujinayso nooc musuqmaasuq oo ay caan ku yihiin nidaamyada one-man showga caynkan oo kale ah uu ka jiro. docda kale waxa tan lagu xidhiidhin karaa taariikhda musuqmaasuq ee kaydadka caalamka madaxweyne Xasan Sheikh hore ugu taalay khaasatan wadankaasi Mareykanka. kolka aynu isbarbar dhigno safaradii madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdiyadiisii marnaba ma ay dhicin 5 sano waxyaabaha noocan la midka ah. sidoo kale ma ay dhicinin in madaxweyne galay 10 safar uu badi wafdiga safaradiisa ku koobo in la haybiyo qabiila. waxa kale oo si weyn u muuqata in xafiiskii ra'iisul wasaaraha dalku uu noqday magacuyaal